asxaabteeda meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay waa saaxiibkiin Wariye Jimuni oo caawa idin ku soo dhawaada video cusub oo aynu markaa ku baran doono sida aan kaga maarano application-ka lagu magacaabo Keepsafe oo aan inta badan sawiradeena muuqaaladeena aynu ku keydsano si muuqaaladeena sawiradeena aynu ugu keydsano taleefankeena qaabka ayaan markaa ugu keydsan karnaa marka hore aynu imaano markaa gallery-ga ayaan tagaynaa sidaad u jeedid bas sawiro ayaa halkan igu jiro waa kuwana sawiradani ma jecel marka inay dadka badan iga arkaan qaabka ayaan markaa ugu markaasi keydsan karaa taleefankayga waxaan ku dhufanayaa file manager laakiin dhanka waa memory iyo qofkii garanaya sanduuqyada iyo DRNA-gaas ay ugu jiraan aniga waa kuwana sanduuqyada saad u jeedaan baa waa halka memory wax looga soo shubo Ibrahim waa kaas highlight ayaan saarayaa saddexda dhibic ugu geesayso koonaha midig jirto ayaan jagsiinayaa Dalis iyo rename ayaa ku jirta rename ayaan ka dooranayaa rename horteeda ayaan point dhigayaa dhibic ayaan dhigayaa waa ka okay ayaan dhahayaa waad u jeedaa uu ii qarsamay sawirkayga waa ka u koreeyay Ibrahim highlight ayaa saaran lama mid ah markaas Android-ka Bluetooth-ka iyo markaas sawiradan ka lama mid ah asiga iyo markaas sawiro hore waa kaas hadaad rabto koonaha midig isha ku xigta flash saarna ayaa jagsiinaysaa marka ku dhufato show hidden file iyo hide file ayaa jagsiinay hide file way qarsameen u jeedaa sidaad u jeedaba kullu way qarsameen haddii rabo jag ayaan siinayaa haddana show hide file ayaan ka dhiganayaa si ay markaas hore ugu soo fulaan waan ka noqonayaa marka gallery-ga ayaan tagayaa gallery-ga ayaan joognaa hadeertaan wadkaas waad u jeedaa daawada asxaabteeda waxaan filayaa inaad ka faa'iideysan doontaan videogani waxaa idin soo duubay anigoo Ibrahim Maxamed Xasan Ibrahim Jimuni ama Wariye Jimuni ay jinaan ku magac dheer share haka iloobin like sidoo kale comment igu soo taageer markaasi share-ta ay dhanka iyo markaasi gacmahaaga waa inaad markaasi u furtaa share comment like waa tahay waa Wariye Jimuni idin leh habeen wacan oo wanaagsan meel